maalmaha boorta mid baa maskaxdayda ku jirtay in aanay viral noqon amba aanay caan bixin fiidiyoyada runta ah amba waxyaabaha runta ka hadlaya laakiin ay caan baxaan fiidiyoyada ka hadlaya waxyaabaha aan runta ahayn laakiin xamaaskin iyo bini'aadanka siday u eg tahay waxa laaliha ka hadlo ma garanayo laakiin haddana fiidiyos weyna laba shay oo been cabe maaha wax aan ka dhigayo wax weyn oo aan anigu runtii iktishafiyo aan soo saaray runteedii maaha wax iska cad bariis faastadu maaha waxa noogu wacan inaynu aqoon yeelano inuu ka jirixmaano Soomaalida kale aynu ka jirixmaano Afrikaanka kale runtii walbaaba amba waddan walbaaba ku mudsa dadkooda ugu wanaagsan ma garanaysa marka tibtidun bad niyadsayo oranaysanyo waxa TV-yada amba YouTube amba meelaha gaarkii dadkii ma kuwani ma umad kala ama aliens kala soo dhaxgalay as oranaysa marka u tagtid caadi meeshii dhibaatada xawayaan suugada lagu darayo protein hagaagsan meelada duqada ku jirta caadi ahaan suugada lagu daray bariiska amba pastadaas amba adigu isku dhaxkarsan booxi doonto waa noqotay waxa lagu daray protein hagaagsan la socda hadda kaliya tocilsi tomaando la googooyay iyo saliid iyo bariis markaas oo kale laxabuul weeyaan inay عوال ولي كاسو بحنا أنباء شيقديدون لبا طلابا قايك أنباء وح مورقان بأرق أنباء حاجة مسكحية لأن انتظرنا ويسها مسكحة دي مسكحيا عاد سلوة هاتيلو جابي سيد حدا مسكحة وقامنا تونس دي أنا انتظر بهيك سنين هاتي مركا مهمدو حويا بليل كاد عنيسين ماكروس كوردا اللي كوشيان أنباء نفاقا كستاودو باانتاي أي كوشيفتاي ولي بس دحي ماكروس يبوه وين فاتس protein iyo carbs oo carbohydrate oo bariiskii fatiskii oo saliidda lagu daray suugadii sida waliba in doorti saliid wanaagsan sida olive amba saliidka oo dabiici vegetable oil naskina suugamayaan vegetable oil soy wax la yiraahdo ku jira oo testosterone ka yareeya taasoo fucking ka dhigaysa vegetable oil proteinkii oo hilibkii ku jiray suugada adaba orderka si uu kala badnaanayaan aad iyo aad u muhiim ah tu fatiska uu ka badiyo waxa ka hordhan naaxaysa fatku markuu sida jirkaaga u galo markiiba baruur baa loo bedelaa kaabisku uu ka yara slowsan laakiin isaga ku xiya proteinku waa ka ugu adag ee loo bedelayo fats oo baruur marka qof proteinkiisu aad u badan yahay way adagtay inuu baruur waaliye kordhiyo oo kaliya protein cunaya baa hilib kaliya tagal cusub way aad u adagtay la baruur kordhay carbs faagu badan oo bariiska de baleerkaaga markaad eegaysid bariis waa badnaada carbskina waxa ku jira tamaandadii lagu bahliyay iyo basashii iyo waxyaabahaas carbsku uu ku badan yahay wax labaadna protein noqdo oo de xogaa hiiba dhinaca ku akiisan waxa saddexaadna uu noqdo fatskii amba wixii ugu yaraana uu noqdo fatiskii markaas ay cuntada dhamaystirmaysaa haddii aynu eegno tacaawinka loo hadlo haddii sida orderkaagu yahay weeyaani haddii loo hadlo Soomaaliya innaga ugu diet wanaagsan intaasi loo eego xaqadeedii maanta ku jirtay waxaa kuu badan qaaday inaad cuntay bariis iyo suugadaasna xoogaa hilib oo duqada ku jirtay tamaandhada lagu sameeyey oo fiitamiinadeedii oo dhan fatiskii oo saliidii lagu sameeyey waxaa kaga rabtaa well balanced diet waxaas la yiraahdaa wal dietkaagu aad ku beewdo sida caadiga wax fiberkaas waxa ugu horeeya afka geliya markuu yahay waxa ugu horeeya moogtay afka geliya inuu yahay wuxuu degdeg amba ugu muhiimsan ee uu digest garanayo jirkaagu waxa ugu wanaagsan amba quraac ha noqoto amba soonkaaga jebintaankiisa ha noqoto waxa ugu horeeya ee afka gelinaysa inuu noqon kursidii diidu second u react karaysa caloosha markaad gelisid aad ugu horeysid waliba waxyaabo shida sida sambusa ku wada doonaa laakiin sambusa oo waxan ku bilaabi karaysid cuntada marka waxa ugu wanaagsan ku bilaabi karaysa waxaan insulintaada aan kicinayn saliidna aan ahayn xashiishna waxaan ugu jeedaa xashiish ma afkaaga wad gelinaysa meelahaas junk de kelmadaas baa macneeyay junk food amba cuntooyinkan warshadaysanee de wada sonkorta oo sokorta sida afkaaga ugu biisid timirtu laakiin sidaa maaha basuul kuu sheegay
haddii aad cuntid energy waadiyaad helaysaa kuna darso sokor haweleeda oo macaan fiberka ku dhex jira ayaa aad iyo aad u wanaagsan oo si wanaagsan u baabiinaya dhibaatooyinkan insulinta kacayso iyo waxyaabahaas oo dhan markaad timirta waxaa ku jirtaa fiber iyo sokor labada markaad isku geysid waxaad helaysaa dawixii ugu piigsanaa amba ugu wanaagsanaa aad ku afuri karaysa markaa waxaa ugu wanaagsan adaayayga aad ku beerkaysa waa brotiin aan saliid lahayn iyo waxaysiin yaro degdeg ah haddaad u baahantay kooras aan kugu soo koobiyo wax kastood u baahantay si aad degdeg ugu gaadhid hadafkaaga aan ku caawiyo naftayda iyo dad kaloo badanba waxaad ka eegtaa commentka ugu sarreeya ee videoga aynu ku soo noqonnaa daba videogeeni caadiga yo fiber markaad timir iyo bed iyo caano saddexdaad isku helisid peak asal way kuwa ood ka haysaa weyaan mid bay u soo calinka beed markaan ka hadlayay waalidkooda waxay iska aaminsan haddii aad xabad beeda cuntid xabad one inay tahay saddex xabo haddii cuntay maalinta aad qaraxay aad caafimaadkaaga wuxuu tahay ood cholesterolshii adduunka ee wadnaha kusoo bamkareynayo adugu dhibaato kasta waxay ku sheegaan beedka kidkaa kadana intaad dowdid lacanikaas balloojika daawo eeg caqligaa waalida daawo kidkaad haddaad maanta qolkayga lagu arko 9 bacood waxba libaanay laakiin xabad beedan jebi qofendi low eeg waxaa liigu qeynaya sidii qof tiri arbilo allow waay mana garanaya sababta beedka soo qaad beedka wax kasta ood u baahan tahay bida'aadan ahaan aan ahayn vitamin C way ku jirtaa beedka maanta haddaad beed iyo xabad liina cuntid wax kastood u baahan tahay halkaasi kugu jira intaad duuntidna haddaad cuntid kuyoo Harvard jooga ayaaba taskareeba innagoo keliya tanna ma haysto dhibaatadan beedku wax waaliya dadku moodayeen ee waxyaabahaas innagoo keliya tanna ma haysto dhibaatadaas waa dhibaato adduun maayla Soomaali keliyata kiraa dhiiggiisu cabaray wax kasta uu eegay 24 xabo beeda ayuu cunay maalin kasta sanad dhammaystiran sanadkii ka bacdi wuxuu arkay inuu cholesterolshiisii dhiiggiisii wax kastoo biomarker oo ku yaalay ay ka sii wanaagsanaatay markii hore marka waa eego sababtaa 24 xabo beed oo ay maalintaani ilaahay baa markaa beedku waxa weeyaan dabaqii adduunka ilaahay baa meeshan keenay siduu uga faa'iidaysatid haddaad ka faa'iidaysan ka weyso sababtaa ooyo kule iyo kal walguna xaamba cholesterol iyo waxyaabo bida'aadan ka sheekeynayaan ba waxba kaa siiya ba gaha amada hooyada waxaan baqashaa ku internetka fadhiyaa wuxuu soo baariyo kaliya 3 sano waxaanay sheegayeen oo beenbo beedku waa peak ya intaas xalisay murankii lamaa ee beedka laga hayay ya ma beentay baa no ay tomaastina taawtay wallahi appreciation amba jacayl aan inaba caadi ahayn baa haya qof kasta oo ii support gareeya thank you adiga la'aanta fiiriyada man duwiday ya wallahi intaasoo qof oo commentskaygii fiiriyadii hore ayaan arkay oo le yo fiiriyada written intaasna ay still lacag kama sameeya YouTube iyo waxyaabaha la garaasa laakiin intaasoo keliya taa maqleebo intaasoo maalinta ii saleynsa ko thank you markaa qof kastoo daawanay fiiriyadida